Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelka Ceeb Lacood. Maanta waxaan idin wadaa qisooyin. Qisooyinkan waa salawaadka iyo istiqaarta. Maasha Allah, horta khayr Allah idin siiyo dadkii ii soo duceeyey oo Ilaahay ii baryay inaan caafimaado. Alxamdulillah, migraine-ka waxaa wax igu soo booda anigoo filanayn marmar. Alxamdulillah, marka kaniini qaato waa ka boodaa adig saacada ka bacdi. Marka maanta waxaan rabay inaan idin soo diyaariyo qisooyinkan aniga maanta ma joogi wadankii oo soo safray. Marka waqtiyada difference-ga ma aha 3 saac iga horeysaan idinka dadka Soomaaliya jooga. Marka taas waa idinka soo daahday, laakiin insha Allah waa ka gaarayna. Waxaan rabay horta intaan sheekooyinka u gudbin laba gabdhood oo walaalo ah. Text ay ii soo qoreen oo dhahaya qisooyinkoodii ay ila wadaagayaan. Gabadhan waxay tiri Sahra Cabdullaahi khayr Allah siiyo, macanta khayr Allah ku siiyo. Aniga saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waa noloshayda oo dhan, waa saaxiibkayga qaaliga ah, waa xafiiska aan u shaqo tago, waxaan ku korsadaa ilmo agoon ah, ilmo aabahood igu dayriyay, hooyo malihi, aaba malihi. Saliga nabiga alayhi salaatu wasalaam wax kasta ayuu ii yahay, maasha Allah. Gabadhan waa gabar nagu xiran anaga channelkeena oo hadda waa soo dhigay magaceeda, xataa khayr Allah siiyo Sahra, Ilaaha kuu fududeeyo. Dhiirigeliska aan la dhiirigelisane waa ku mahadsan tahay. Gabadhan Muna Axmed waxay tiraahdaa iyadana assalaamu calaykum abaayo, qisadeeda saliga nabiga alayhi salaatu wasalaam. Marka aan jaamacad dhiganayay 2 sano ayadoo ii marayso baan waayay lacag oo aan ku bixiyo, mana rabin inaan ka haro jaamacadda. Waxaan aqaanay fadliga saliga nabiga alayhi salaatu wasalaam. Habeenka salaatu leylka intaan soo kaco 10,000 ayaan akhrin jiray. 30 beri markii aan waday baa lacagtii discount la iigu sameeyay oo haddana lay ballan qaaday oo lacagta wax iga bixiyay ayaan helay. Qisada xigta saliga nabiga alayhi salaatu wasalaam, qof aan xiriir la lahaa baa dhammaan qarashka jaamacadda iga bixin jiray. Qisada saddexaad, markaan jaamacadda qalinjebin marayay $300 ayaa la dhahay bixi, anigana ma isoo galaynin. Mar labaad ayaan saliga nabiga alayhi salaatu wasalaam haddana aan sameeyay. 100 ayaa hooyo ii soo dirtay, 200 qof aan aqaan ayaa i siiyay. Markaan jaamacadda dhameeyayna 200 ayaa ii hartay oo ganacsi aan ku samaystay. Hadda ganacsigaas baan leeyahay, kamana tago saliga nabiga alayhi salaatu wasalaam. 5,000 baan akhriyaa. Taana waa qisadeedii. waa walaashan abaayada Muna Axmed la dhaho. Khayr Allah ku siiyo Muna, adigana saa noogu soo waa jeclahay dadka inuu hoos noogu soo qoro commentiga sida noloshooda u bedeshay. Qof walbaba maanta waxaan rabaa inay inoo soo sheegtaan sida ay nolosha saliga nabiga alayhi salaatu wasalaam ama istighfaarta idin bedeshay. Maadaama waqti badan aanan haynin oo aan ku jiro safar, qisooyinka alxijaazi awood ma u leeyahay inaan soo geliyo, laakiin markii aan ku laabto wadankii aan ka imaaday insha Allah waqti aan heli doonaa hadduu Alla yiraahdo. Marka hadda sheekooyinka labada qisada waaweyn aan inoo soo gudbinayaa hadda. qisadeena koowaad baan bilaabeynaa hadda. Alxamdulillah, war farxad leh ayaan idin sidaa. Deyntii laygu lahaa 500,000 oo dirham ayaa inta badan iska bixiyay. Qiyaastii 80,000 oo kaliya ayaa igu hartay. Aan idin fahansiiyo, 500,000 oo dirham waxay u dhowdahay $130,000 oo Mareykanka. Waxay gabadha sii waday, gabadhayda daawadeeda dowladda ayaa bixisa hadda. 1 dirham ma bixiyo. Alxamdulillah, mahad iyo ammaan oo dhan Ilaahay ayay u sugnaatay. Milkiilaha dukaanka ayaa ii hanjabay. Gabadhan dukaan ayay lahayd. Dukaankana waxay bixin jirtay liis iyo qarash ay bixin jirtay inkastoo iyada ay lahayd. Dukaankii ninkii oo landlordka ahaa ayaa dacwad badan ka gudbiyay gabadhan oo wuxuu yiri haddaan lacagta bixin weydo oo lagu leeyahay maxkamad ayaan ku saarayaa. Milkiilihii dukaanka iyo kan gurigeedaba xataa oo landlordka gurigii oo ay ka ijaarinaysay, labadaba waxay igu hanjabeen talaabo sharci ah. Milkiilihii dukaanka dacwad buu iga gudbiyay, ama waa inaan bixiyaa ama waa inaan firaaqayaa dukaanka. Lacagtu waxay ahayd 207,000 oo dirham. Shirkaddii guryaha maamuleysay ayaa iyadana dacwad iga gudbisay. Dulqaadkoodii meeshii ugu dambeeyay ayuu marayay. Inkastoo wax aan bixinayay wax yar tusaale 10,000 hadda 7,000 mar kale 5,000 mar kale. Shirkaddii waxay tiri taasi anaga mana anfacayso, mana nagu filna. Waa inaad wax badan bixisaa si aan u cusbeysiino qandaraaska kirada. Ilaahay baan ku dhaartay salaadii sidii muslimiinta aan u tukadaan baan u tukan jiray, waan ilaalinayay. Xuska dikir joogto ahna
waan samayn jiray inta badan taajir dhikr ayaan samayn jiray laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lah ayaan samayn jiray iyo salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam maalin ayaan daawanayay muuqaal ka hadlaya waqtiga gaarka ah ee jimcaha ee lagu ajiibo ducada waxaan u sheegay haween daris aan ahayn oon aqaan iyada qodeedan dhibaatooyin badan bay maraysay waxaan ku iri kaale aan tukano maanta waa jimce waa inta u dhaxaysa casr iyo maghrib waqtiga jawaabta leh aynu nabiga sallallahu alayhi wasallam salaan iyo barako u dirno ma waxaan tagnay masaajidkii waxaan bilaabnay inaan tukano salaada casirka halkaas ayaan fariisanay ilaa iyo maghrib anigu waxaan ku sii celcelinayay yaa jabbaar yaa ilaah wax ii hagaaji ilaahayow arrimahan dukaanka ii fududay waxyaalaha ii toosi waxaan aaminsanaa in ilaahay xal ii furi doono in xal uu ii iman doono sida uu ku imanayo ma aqaan laakiin waan rumaysnaa subxaan allah waqti kooban kadib maalintii ku xigtay nin leh dukaan dhar oo agteeda degan ayaa isoo wacay wuxuuna i weydiiyey ma rabtaa in dukaanka lagaa iibsado oo aad furaha dhiibto waxaan ku iri haddaan kaa iibiyo aniga halkeen aadaa wuxuu yiri waxaa jira nin 3 sano indhaha ku haya dukaankaaga mar kasta wuxuu dhihi jiray haddii haweentaas rabta inay iska iibiso aniga iibsanaya waxaan ku iri laakiin dacwad ayaa igu socoto oo 207,000 oo dirham ayaa laygu leeyahay wuxuu yiri hawalwalin waan iman doonaa dukaanka ayaan eegaynaa insha Allah khayr buu noqon doonaa anigu dukaanku waxaan ku iibsaday 170,000 oo dirham sanado ka hor waxaan bixiyay qurux iyo hagaajis iyo waaqo quruxsaday wuxuu igu yiri hawalwalin khayr filo ilaahay baan ku dhaartay si degdeg ah isla markiiba ducooyinka jimcaha ee masaajidka aan ku fadhiyay dukaankii waa la iibiyay waxaan wacnay wakiilihii dukaanka lahaa deyntii waan iska wada bixiyay lacagta xataa landlordku wuxuu iga cafiyay 30,000 oo dirham ayuu iga cafiyay isla maalintaas ayaa hadda lahaanshihii lagu wareejiyay ninka cusbaa kiradii waa la saxiixay anigana lacagteedii gacanta ay ii soo gashay ninkii iga iibsaday wuxuu i siiyay 1 bil oo bilaash ah oo aan ku helo dukaan cusub waxaan helana dukaankii ka wanaagsanaa ayaan helay kii hore wuxuu ku yaalaa jid kaliya oo hala ah laakiin kan cusub dukaankayga cusub hadda wuxuu ku yaalaa isgoys oo 4 wada ah meel ka mid meelaha ugu fiican kira badanna ma dhiibo marka loo eego meesha ay ku taalo iyo qarash wareejisna ma jirin oo furo aan bixinayna mana jirin maanta waxaan hagaajinayaa dukaankayga cusub kiradii gurigana waa la cusboonaysiiyay oo waan iska bixiyay 6 bilood ayaan hore u shubay kiradii guriga waay lacagta iskuulka wiilkaygana waan sii hor bixiyay gabadhaydana daaweyn fiican ayay heshaa anigoo 1 dirham iga bixin masaajidkii ayaan kula kulmay macluumaad i weydiisay dhibaatooyinkayga waxaan u sheegay xaaladeyda markaas waxay u tiri qaybta autismka ciyaalka xanuunsan tag isbitaal hebel waxaad qaadataa kaarka caafimaadka ee gaduudan daaweyntu waa bilaash sidaas ayay gabadheeda hadda ku heshaa daaweyn oo bilaash ah barakada marka salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam ayay deynta ayaa iga bixisay ilaahay taas ayuu fadli igu siiyay hadda waxaan joogaa gurigayga waxaan ka shaqaynayaa bilicda dukaankayga saan u qurxin lahaa hawshiisana waxaan ka maamulayaa inuu gurigayga jooga ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu iga qaaday culaysadii oo dhan inta badan deynta waan iska bixiyay qiyaastii 10% ayaa ii hartay waxaas oo dhan waxay ku yimaadeen barakada salawaadka salaatul fajr suuratul baqara iyo taajir dhikr iyo sadaqo wallahi 500,000 oo dirham toddobaad gudahood ayaan bixiyay ilaahay baan ku dhaartay waxaa jiray macaamil iga dhuunta oo markasta markaan dharkii waxyaalaha u hagaajiyay uusan iga soo doonan taleefanka xataa igama qaban jirin laakiin marka aan qoray markaan dadka u sheegay dukaanka inaan xirayo ayaa imaadeen wixii iga qaateen oo lacagta i siiyeen dhar oo dad oo gabdha aroosyana dhar aan u habeynayay oo dhar aan u hagaajinayay ayagana way imaadeen oo iga qaateen waxay u ekaa dukaankan inuu sharci ahaaba laakiin markii aan iska iibiyay wax walba ayaa ii kala furfurmay markaan ka guuray dukaankan ilaahayna waa rasaaq ilaahay waa weyn yahay dhammaan arrintan oo dhan ilaahay wuxuu igu kala furfuray salawaadka nabiga gabar aan saaxiib nahay oo injineer oo diyaaradaha ah shaqo weyda meel kasto jimcaha ugu dambeysay ee December aan soo dhaafnay annaga oo 2 ah ayaan i'tikaaf ku galnay masaajidka ayaan fariisanay casr ilaa iyo
مغرب haddana waxay ka shaqeysaa al-Ittixaad Airways ay ka shaqeysaa diyaaradahaas ka shaqeysaa hadda mushahar ee weligeed ay ku riyoonin way qaadataa waxaan kaloo lahaa saaxiib kale oo walaasheed xanuunsaneed oo kansar qabtay markay u tagtay dhakhtarka kormeerka wuxuu ku yiri dhakhtarkii maxaa samaysaa kansarkii wuu kaa yaraaday waxay ugu jawaabtay kaliya salawaadka ayaan ku akhriyaa maalin walbaba ayaan akhristaa walaasheen waxay 14 sano la dagaalamaysa kansarka oo xabadka feeraha waxay tiri gacanteeda ayaan saari jiray meesha xanuunka yaalo markaasaan salawaadka akhrin jiray kormeerkii dhakhtarka ugu dambeeyay wuxuu u yiri kansarkii wuu baaba'oyaaba waxa sameeyay ma garan karo xitaa waxaa jirta sheeko ku wareegaysa isbitaal meel aan aqaano dhakhtar baa yiri kalkaalisada u shaqeysa habeen kasta ka hor fajarka ay intay fariisato meel ay gacanta waxay saari jirtay meesha kansarka ku yaalo iyadoo salawaadka akhrinaysa hadda gabi ahaan way bogsatay xitaa way umushay inkastoo dhaqaatiirta ay ku yiraahdeen hore weliga caruur ma dhalaysid ilaah baan ku dhaartay jimcaha inta u dhaxaysa casr iyo maghrib waxaa ku jira duco iyo salawaad anigoo ku jira masaajidka sabtidii dukaankan waan iibiyay jimcihii ayaan sameeyay ducooyinka sabtidii dukaanka waan iibiyay isniintii deynteeda waa iska bixiyay khamiistina qandaraas cusub iyo qorliis cusub dukaankii mulkiilaha lahaa dukaanka hal bil oo bilaashna uu isii kan cusub dukaankii saan u quruxsaday dukaankii cusbaa kiiskii maxkamadana uu iga xirmay maadaama taariikhdii la gaarin qayb xataa uma bixin deymihii guriga laygama ceerin xataa aan deganaa waan iska bixiyay ninkii wuxuu yiri maadaama aan tahay qof soo dhibaatootay 30,000 ayaan kaa cafiyay waa nin oo weligiis xataa shilin ii cafin jirin awal ayaa hadda ii cafinaya oo ka tanaasulay 30,000 wallahi waxaan jeclahay inaan u baxo wadooyinka dadka dhan u sheego nabiga sallallahu alayhi wasallam ku saliya waxaad u baahan tihiin ilaahay uu ku fadli idinku siinaya sheekada halkaas ku dhamaatay walaalayaal runtii waxaa ku jira mucjiso salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam gabadha wali sheekada sii wada anigu shakhsiyan ma aanan kala kulmin dikr kale oo sidaas degdeg ah u jawaab ilaahay jawaab iigu soo diro xaqiiqdii markaan dhibaato ku jiro ama aan rabo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax inuu ii barakeeyo waxaan u jeesadaa allah subxaanahu wa tacaala anigoo bilaabaya inaan saliga nabiga u diro sallallahu alayhi wasallam subhanallah farajka si dhaqso ah ayuu u yimaadaa talo fudud oo xoog leh ayna siiyo jimca kasta inta u dhaxaysa casr iyo maghrib fariiso si degan adigoo wax kaleeto aan ku mashquulin wixii amal ahaayo dhinac iska dhig say dheh allahumma salli ala sayyidina muhammad waxa kaloo akhrisaa salaada ibraahimiyada hadii awoodo taas ka sii fiican labadaba isku dar hadaa rabto kadibna fiiri sida deganaanshaha iyo barakada noloshaada ay ugu soo qulqulayaan wax kasta oo hadda wajahaysid waxaan kugu martiqaadayaa inaad sidaas samayso samee adigoo qalbi kaamil ah oo yaqiin leh oo ilaahay yaqiin leh agtiisa oo ku jawaabi doono sidoo ballan qaaday hadii qalbigaagu rabo inuu duco samaysato samee hadii kale siiba salawaadka ilaa iyo maghrib ha noqoto waqti aad si qoto dheer ah ugu xirantay Allah subhanahu wa ta'ala oo aad ugu dhawaatid Allah subhanahu wa ta'ala markaad barako iyo natiijo hesho ha qarsanin sheekada nala wadaag insha Allah waxay u noqon kartaa dhiirigelin waxay noqon kartaa dhiirigelin qof walba oo xaaladan ku sugan intaas ayaa hadda sheekadan ku eg tahay okay qofka sheekada kaleeto aan idin sheego dhowr bilood ka hor si buuxda ayaan u murugeysnaa oo qalbi u jabnaa ninkaygii baa iga dhintay subhanallah meeshaas ayaa nolosheedii dhan ku jaranta ayaan dareemay hal sano ayaan shaqo la'aan ahaa murugo iyo oohin joogto ah baan ku jiray muuqaaladaadii ayaa ii sheegtay in gargaar ilaahay u dhow yahay waxa waa macnaheedu fiidiyoyaashan aan daawaday istighfaarta iyo dhikriga iyo salawaadka waxaad igu tiri ayay tiri qiyaamo leyl tuko u kac habeenkii u dir nabiga sallallahu alayhi wasallam salawaad dhammaan waan sameeyay eray walba oo aad tiri waan sameeyay waxaan tukaday salaatul leyl markaasaan ayaa ilaahay ku iri yaa rab xaaladeeda aad bay jiq igu tahay hal sano dhan ayaan shaqo la'aan ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaan ku saliyay ilaahay ayaan ka dalbaday dambi dhaaf oo istighfaar badan ayaan sameeyay waxaan ku celinay ducada yaa rab adiga ayaa og xaaladeeda iyo waxa qalbigayga ku jira wiil baan leeyahay waxaan rabaa inaan si xalaal u korsado oo u quudiyo oo wax u baro hami weyn ayaan u leeyahay korintiisa ilaahay ugu caawi hal sano oo dhan ayaan shaqo raadinay albaab kasto aan garaaco qaraabo ma sheegtay ajnabi ma sheegtay dad wanaagsan dad xun kulli wax ii soo gurmaday
ma jirto wax iga soo baxayna ma jirto laakiin markaasaan ilaahay subxaana watacaala albaabadii ii furay shaqo ayaa ka kala imanaysa jiho walba halkaan iyo halkaas iyo dad baa isoo wacaya ama iisoo diraya fursado markaasaan markii ugu horreysay nolosheedii dareemay yaqiin kalsooni dhammaystiran weligay sidan uma dareemin laakiin hadda waxaan ogaaday in wax walba gacanta ilaahay ku jiraan dad kale looma baahna dad ha u ordin dad ha weydiisan waxba keliya dheh yaa rab wallaahi inta aad gacmaha kor u taagto ilaahay u yeero wuu kula jiraa ilaahay aad ayaan ugu mahadnaqay ilaahay farxad iyo mahadnaq ilaahay baan ku iri waan ku jeclahay yaa allah aad baan ku jeclahay maxaa yeelay waad ilaalisaa ma aadan iga dhigin mid dadka u baahan ninkii ururin jiray kirada bil kasta wuu iman jiray anigu marnaba kama baaqan jirin inaan kirada bixiyo ama biilasha kale laakiin sanadkii hore aad bay sheekada ugu duwaneyd awood aan ku bixiyo wax ma lahayn wuxuu ahaa sanadkii iigu darnaa hadda qarashkii waa bixin karaa shaqo ayaan bilaabay hadda wiilkaygan waxaan geeyaa iskuul fiican wax kasta uu rabana waa un iibin karaa hore waxaan ka cabsan jiray inuu subaxdii markuu kaco uu i weydiiyo cabitaan ayaan rabaa anigoo haysan haddana farinjeerka waa u buuxiyey markii ninkayga geeriyooday nolosha aad bay igu adkaatay laakiin markii aad igula talisay baryada ilaahay subxaana watacaala wallaahi qiyaamuleyl ayaan u kacay waxaan ku iri yaa rab anigoo xanuun badan dareemaya haddana islamar ahaantaasna kalsooni iyo deganaan ayaan helay wallaahi sidaan kuu sheegayo marar badan waxaan ku fariisin jiray gaariga anigoo sita tusbax ilaahayna u yeeraya 2 jeer ayaa waxay ugu dhaceen wax qalbigayga gilgilay qof baa isoo wici jira oo shaqo ii ballan qaadaya waxaan ka amaahan jiray walaalahey dayn iyo waxa si aan u tago oo meeshaas aan aado markaan gaarin waxaa laygu dhihi jiray waa ka xumahay hadda uma baahnin qof noo shaqeeya anigoo qalbi jaban ayaan guriga kusoo laaban jiray waxaan lahaa yaa allah anan ilaahay tan raali may kaa dhigaysaa laakiin ilaahay baa i karaameeyey oo qalbigayga dejiyey labadaa mar ayaa sidaa ku dhacday haddana aad ayaan u faraxsanahay oo mahadnaq ayaan ku jiraa waxaan ilaahay kula ballamay inaan wax xun aan samayn dabcan qof bani aadan ayaan ahay waa qaldami karaa laakiin haddana waxaan isku dayaa inaan qofna ka sheekayn xan aan samayn dembigii iska ilaaliya inta karaankayga ah xataa walaalahay inaan xanto ma jecli haddii aan qof gaf u sameeyo haddaan qof gaf ka sameeyana waa toobad keenaa ayagana waan weydiistaa cafis wax u ekaa in nolosheedii burburiso wuxuu noqday bilowgii barako iyo farxad iyo hadiyad ka timid ilaahay subxaana watacaala runtii ballanta ilaahay waa run laakiin dadka intooda badani ma oga ilaahay subxaana watacaala run ahaantii wuu i barakeeyey wuuna iga yaabiyaa wuuna i siiyaa wuuna i dejiyaa wuuna i karaameeyaa dabadeedna wuu ii nimceeyaa oo qalbigayga nabad buu geliyaa markaa dib u eegto mushkiladihii hore oo dhan waxay u ekaanayaan wax taariikhi ah page oo la rogrogay la jeexay la ilaaway farxad way iman doontaa guul way iman doontaa hadiyadaha way iman doontaa waa ilaahay wuu ku arkaa weligiis kuma dayacayo wuu ku arkaa ilmadaadii ooyintaadana wuu arkaa markaad istaagto oo tukanayso ilaahay wax kasta wuu maqlaa wax kastana wuu arkaa wuxuu yahay naxariis badane xanuunkaagana wuu u jeedaa wuxuu hadalkaaga hoose iyo hadalkaaga korena wuu maqlayaa cabashadaada cabaadaysidna wuu maqlayaa kaliya waxaan rabaa inaan dhaho wallaahi hore aad ayaan u qalbi jabnaa mar walbana waxaan oran jiray intaan ka badan ilaahu ma xamili karo ma garanayo waxaan sameeyo laakiin hadda oohin farxad leh ayaan ooyaa ilaahay baa qalbigayga dejiyey farxad baan ku noolahay alxamdulilah aad ayaan u faraxsanahay waxaan iraahdo ma jiro aan ka ahayn mahadsanid ya allah adiga ayaa mahad leh ilaahu isu hanuunisay waxaan hore u fududaysan jiray hore istikfaar waxaan u moodi jiray hadal la iska yiraahdo laakiin markii aan bilaabay qiyaamuleyl istikfaar iyo gacmo taagid kor duco si nabad ah ayaan u sexdaa hadda waxaan bilaabay riyooyin aad u qurux badan riyooyin wanaagsan riyooyin risqi ii soo socda kaliya dheh yaa rab help me ilaahu caawi haddii uu ku tusayo calaamado ogow way soo dhowdahay relief iyo nimco runtii ilaahay baa ii irsaaqay risqigaygana ilaahay wuu balaariyey usbuucii hore shaqo ayaan u baxay markii igu horreysay muddo dheer kadib ayaan shaqo helay waa weli waaba cusubtahay hal usbuuc baa shaqadan haystaa laakiin alxamdulilah ilaahay aan ku mahad celiyaa fariinteeda qof walba ku dheganoo istikfaarta ku dheganoo qiyaamuleyl
nabiga sallallahu alayhi wasallam salawaad u dir. Haddii aad dhibaato ku jirto ilaahay wuu kaa saari doonaa, waxaad ku soo noqon doontaa adigoo si fiican tii hore ka fiican. Nolosha mar walba qurux ma aha, laakiin nolosha mar walbana ma xuma. Ilaahay ha nagu kulmiyo khayr, hana naga dulqaado dhibaato, cid kastoo dhibaato ku jirtana ha ka dulqaado sida uu aniga iga dulqaaday iyo kuwii iga horeeyaba. Aamiin. Marka qisooyinkan maanta intaasay ku eg tahay insha Allah. intaas ayaa maxaan dhahaa kusoo ekeeyey. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.